maantana waxaan ka hadlaynaa macdan kale oo macdanihii aanu ka hadlaynay oo saddexleyda ahaa. Waxaan hadda ka hadlaynaa macdan tan loo yaqaano monazite iyo sidoo kale rare earth element, iyo waxaan ka hadlaynaa meelaha dahabka laga helo, astaamaha dahabka qayb ka mid ah. Monazite haddii aad aragtid, horta monazite waxaa laga helaa meelaha ciidda culus leh baa aada looga helaa. meelaha ciidda culus leh marka waxaa ku jiri karaa magnetite, elementate iyo rutile iyo zircon, monazite iyo garnet. intaas waa ku jiri karaan. sidoo kale waxaa iyaguna ku jiri karaa bahda rare earth element. haddii aan aadno bahda rare earth element, rare earth element waxa ay iyaguna aad horta dadku dunida rare earth elementska waxyaalahan loo yaqaano, dadka dunidu waxay u haystaan inta badan inay yihiin sheeyo wada naadir ah, laakiin xaqiiqiyan sheeyo naadir ah ma ahan. in la helo meel ay kayd badan ku leeyihiin oo ganacsi geli kara ayaa yar, laakiin aasaaraha la heli karo oo dunida waliba ku badan bay ka mid yihiin. marka qiyaaso badan samayno, waxaan halkaa ka ogaanaynaa qodobo badan oo muhiimadooda ayaguna iska leh. marka mar walba oo aan qofka wax la eegayno, waxaan kula talinaynaa inuu waxa ka fekero kana fiirsado. waxaana jira sheeyo badan oo uu kala baxo adeegan rare earth element. ma ahan hal sheeya oo dhagaxdan halkan ku xusan oo magnetitekaas iyo waa ka mid. haddii marka aad eegtid halkaa waxaa kaaga muuqda ilaa 5 dhagax baan ku soo xusnay. waad sii eegi kartaa, wax badan baad sii aqrin kartaa. mararka qaarkood mar walba xogta idinkama tago oo xog inaan idin reebo idinka laftirkiinu aad aqridaan ma aan samayn, laakiin hadda qorshaha inaan idinku soo diro ayaan rabaa. qaybtan halkaa marka aan joogno, waxaan marka tegaynaa si guud mara ayaan qaybahan maanta u guud maraynaa. dahabka kale hadda waxaan idiin sheegay horay, meesha astaamo dahabka lagu garto baa jira, sida bayradka iyo ironka iyo waxyaalaha aan horay idinku sheegay qaarkood. markaad isku daraasayseen daraasadan maxaa idinka soo baxay? halka hadda waxaa idinka muuqata meel buurah. meeshaan buurta markaan indhaha aanu ka sheekaysano, qoraalka ka nimaano, buurtaas dee waxaad aragtaa in dhagax ku jiro. dhagaxaasina uu maaragtay sii socdo, kadibna uu astaan madowga samaynayo. madowgaasi waa birta dhexdeedana waxaa ku jira dahabkii. sidoo kale ciriqina saas uu raacaya. waxaa lagu tusay tilmaan rasmiya. marka dhagaxan maaragtay loo yaqaano hematite-ka oo gaduudka ah, waa dhagaxda waxaa weeye dahabka astaan buu u noqdaa. sidoo kale dhagaxan aan horey idiin tusay oo waxaa loo yaqaanaa hotite-ka, isagana wuxuu ka mid yahay madowga inta badan. waa dhagax isagana loo yaqaano inuu maaragtay isaguna ironta ka tirsan yahay. dhagaxan marka waxaa la yidhaahdaa chal copyright-ku asaga wuxuu xigaa inta badan covertuu xigaa. sidoo kale iron buu leeyahay. marka aan isu eegayno
arsen arseno bayrodkaasna isagana waxaad arkaysaa hoos waxaa kaga xusan inuu isaguna leeyahay iron haddaad iron marka aad aragtid waxaad deris la tahay maado dahab ah ama meel dahab laga heli karo ayaad joogtaa waa qiyaas moogtahay mar walba lagu qaato dahabka marka macdan marka aad doonaysid macdantu waxay kala leedahay midabo haddaana doonaysid sida macdanta rare earth element sida macdano kale oo la mid ah kulli waxa laga rabaa waxa weeye in aad meel bir leh ka raadisid macdanta dunidu isticmaasho 90% meel bir leh ayay ku jirtaa sababtoo ah meesha birta leh waxaa ku badan macdan marka macdanaha meel jamestones baa yaala oo waa maado qorxeed oo maadadaas inta badan birta way ka maran tahay oo ayaga laftirkoodu laakiin birta meelo badan bay deris kale yihiin oo mar badan bay birta la joogaan laftirkoodu marka isku celiyo adiga maxaa kaaga soo baxay ma jiraan cimilooyin noocaan ah oo aad aragtay ma jiraan booqashooyin noocaan oo aad samaysay ma jiraan macdanta xilli aad raadinaysay ama waxa aad ka baranaysay xogo aad soo baratay oo aad nala wadaagi karto mase garanaysaa xogo annaga aad naga faa'iiday oo aad nagu soo beerin karto oo aad dhihi karto waxaasaa faa'iiday hadday jiraan waxa aad annaga naga faa'iiday waxaan rabnaa inaad commentiga nagula soo wadaagtid waxaasaa ka mid ah waxay aad ka faa'iiday hal qodob oo ka mid ah mar walba aniga dadka macdanta baara waxaan idiin soo dhigaa macdanta laakiin qodobkan idinku soo dhigayo macdanta maaha inaad macdanta degdeg u raadisaan idinkoo aan aqoonta baran sababtoo qofku aqoon hadduusan lahayn wuxuu la kulmaa culaysyo tiro badan marka culeysyadaas si aad u xalisaan ha ku degdegina macdan raadinta ee ku degdega waxbarashada macdanta iyo daraasaynteeda anigu waxaan kala kulmay macdanta dhowr waxyaalood sidoo kale waxaan la kulmay dhowr dadyaalood oo macdanta ka shaqeeya waxaan arkay 70 jir raadinayay 30 sano macdan aan weli helin waxaan arkay 20 jir raadinayay 2 bilood guriyana ka dhistay waxaan arkay 40 jir shaqadiisii oo dhan u soo kalowsay haatanna dadka waalan ku tiriyeen waxaan ka arkay macdanta lamaanayaal macdan intuu ninkii raadiyey oo ku soo fakhriyey ku kala tegay nin iyo naagtiba waxaan arkay qof macdan raadiya maalin kasta oo aan mid ka mid ah aqoon haddana mar kastaba iib ku raadinaya wixii uu soo aruuriyey inay wax yihiin iyo inaysan wax ahaynna ma kala oga laakiin asagu niyadda khayr unbuu sheegayaa haddii wixii raqiiska ahaa laga gato iyo haddii wixii qaaliga ah waxay lagaga bedesho labadaba dee kolley qorshe uguma degsana waxaan arkay qof dhagax raqiisa haysta oo iib loo gaaray oo ku diido cirka la fuulay oo kadibna mar dambe wixii wax ka gata waayey oo iska xooray waxaan arkay dad jawhartan macdanta iyo waxyaalo kale helay oo jawhartan maska oo markaas jawhartii ay ka dhacday intay iib fiican loo gaaray oo iibka ay diideen waxaan la kulmay dad intay yiraahdeen macdan baan haynaa dad badani ay lacaga ka gurteen oo la yiri annaga iibkeynayna waxaad samaysaa lacagtaas bixi oo canshuuraha bixi oo waxaa bixi oo lacagtoodii laga cunay waxna aan markaa loo iibin
waxaan la kulmay intaas oo baleem ah oo dad loo degay oo qorshe ah oo dadku khasaareen. marka macdanta dadka waxaan kagala talinayaa horey maadaama aan idinkagala taliyey in aan macdanta degdeg loo raadin. sidoo kale macdanta dadka ka shaqeeya dad aqoon wada leh maaha, dadka iibsadaana dad wada daacada maahan, dadka baraha media ku jira oo macdanta shaqadeeda hayaana dad wada daacada maaha. intaa marka haddaad isla fahanay waa inaad wax wadan ka fiirsi samaysaan oo iidan ku degdegin, wax walbana aad ka ogaataan xaqiiqada dhabta ah. ciddii aad dhihi kartaan 100% waxbaa lagu aaminaan karaa aad wada shaqayn la samaysaan, laakiin iidan cid kasta iskala macaamilin. taas waan idinkula talinayaa. qofkuna dee inuu ummadda aamini waayana dee waa qayb waalida ka mid ah, inuu ummadda wada aaminana waa qayb doqonnimada ka mid ah. marka ummadda hana wada aaminina, hana wada dayrinina. culumta qof kasta uu xambaarsan yahay iyo waxa uu dadka u sheegayo markii dib loo raaco waxaa la ogaan karaa inuu qofkaan aqoon u leeyahay waxa, iyo inuu waxaan iska buusanayo, waxaan inay xaqiiqo ka jirto iyo inaan wax xaqiiqa ah ka jirin. taana dee dadka daawadayaasha ayaa xaqiiqadaas ogaan kara. qof kastana dee wuxuu hoos tagaa xogtiisu ay hoos tagtaa cidda macalinka u ah. qof kastaaba macalin buu dunidan ku lahaa, macalinkiisaasuna hoos tagaa aqoon ahaan, shaxdi macalinkiisuna wataa. xaqiiqada dhabta marka intaa markaan tusaalooyin badan isla aragnay, idinka wixii aad halkan ka fahanteen ama wixii culus aad la soo kolanteen sidoo kale commentiga nagula soo wadaaga. barnaamijkana inaad share garaysaan oo like garaysaan oo saaxiibo oo dhan gaarsiisaan waa idinka codsanaynaa. sidoo kale waxaan idin sheegaynaa buugaagtii macdanta waanu haynaa, buugi dabka iyo buugi macdanta. buug kale hadda waa dhadhow yahay. waxaan kaloo idin helaynaa haddii ilaahay idmayo isdiiwaangelintii ardayda. sidoo kale alaabaha macdanta nasi online ahaan ayaan iyagana u iibinaa, oo qofka alaabta macdanta u baahan waanu ka iibinaynaa. alaabo badan ayaan online ahaan u iibinaynaa. marka mar walbaba saaxiibadayada sharafta leh ee rag iyo dumarba leh ee daafaha caalamka jooga ee qaar aan wada shaqaynay qaarna een kor nagala socdaan, intaba aad baan uga mahadcelinayaa. barnaamijkuna markastoo aad like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ta ku badisaan idina waa markastoo xogta idin soo gaarayso, annaguna waa markastoo aanu xiiso iyo farxad ka dareemayno inaan xog dadka soo gaarsiino. waad mahadsantihiin saaxiibayaal. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.